الله الرحمن الرحيم عويسين ونكسن مدن ياليا مرويين سياسيين تا أقوى يهندا صحفيين تا أبوان ندا دائر تا كسر دوادة برنامج كينا نعاوا تعددي تقينتي هركيسة إيا ضميركي بدبادة دولي أحمد محمد حسن أحمد داره barnaamijka si toos aynu bilaabin doonaa waxaynu ka furan doonaa aayadaha quraanka kariimka ah waxaynoo akhrin doonaa maxamuud jawaase أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Samakuwar sarreey caalamka suran bilay dhulkiisa samakuwar iyo bogadi sugan ambalya suban kugu salaamay samakuwar geesiyaashii naftooda u safeeyay qaranimada Soomaaliland geesiyaashii naftooda u safeeyay qaranimada Soomaaliland iskooda dhowrsan kugu salaamay samakuwar iskooda dhowrsan kugu salaamay samakuwar guul sidee xambaarsan soo noqoshadiisa kalsoonidu mutaystay dastuurka kugu salaane midnimo walaalnimo gobonimo midnimo walaalnimo gobonimo islaamnimo kugu salaane samo samiyo islaamnimo kugu salaane samo samiyo samakuwar 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 caawa hadallo badan ma jiraan dadku waxay xiiseynayaan inay toos u guda galno barnaamijka iyo muhiimadda barnaamijkeena caawa oo ah dhacdadii duqeyntii hargeysa iyo damiirkii badbaada ee duuliye axmed maxamed xasan axmed dheere waxaan si toosa ugu yeedhi doonaa gudoomiyaha xarunta dhaqanka dr jaamac muuse jaamac ila soo dhaweeya waxaan iminkana u yeedhi doonaa maxamed axmed xasan maxamed dheere بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي با محضله إلهي با كيلجي محضله إله عاوة نبضة يقرحة يوناجا عاوة هل كن كود تشوجنا مجالة دسن تاجن سيدا جوبني بدأ لوجنا اللي هاي إنه وجود قين نبضة سيوناجا فا كيلجي محضله أدبان دي كم هاد عليا إن يدين عاوة أدن هل كن وجود في معدان dad fara badan baa afartii cisho u dambeeyey ee baraha bulshada la geliyey fariintan su'aalo fara badan soo diray marka caawa waxa aynu badan ma jiri doonaan su'aalihii dadku soo weydiiyeen dhacdadaynu caawa isugu nimi ayaynu caawa halkan ka tixi doonaa inta aanan ag fadhiisanin walaalkay axmed maxamed xasan axmed dheere duuliye axmed dheere waxaan doonayaa inaan weeryar ka idhaahdo si waqtigana inoogu fududaado oo aynu arrinkaynu isugu nimi halkan aynu toos ugu gallo inaan in yar idiin sheego waa kuma duuliye axmed maxamed xasan axmed dheere lagu naanayso wuxuu ku dhashay jowhar
wuxuu ku barbaaray oo wax ku bartay xamar magaalada muqdisho halkaasuu dugsiga sare ka galay markii uu dhammaystay dugsiga sare waxa uu waxbarashadiisii labaad ka doortay inuu noqdo leyli sarkaal ciidan uu noqdo waxa uu ku guulaystay isaga iyo 15 kale oo dhalinyaro ahi in loo qaado dalka Masar magaalada Qaahira oo nasiib wanaag maanta duliyaasiin oo kale halkan nala fadhiyo oo ahaa dadkii maalinta ku wada guulaystay deeqda waxbarasho ee Qaahira tagay ee Axmed ka mid ahaa iyo 15 qof waxaan ahayd 1973 waan ku faraxsanahay inay inala joogaan liigis kale dad kale oo la shaqeynayo ciidamada ka mid ahaa duulista oo caawa halkan jooga oo yaraantoodii soo wada qaatay jid soo wada mareen oo farax ka mid yahay waxaa loo tababaray markaa Axmed Duuliye ciidan dagaal oo kiciya diyaaradaha dagaalka ma aha diyaaradaha aynu raacnay ee civilka diyaaradda loo maaragtay diyaarad dagaal baa loo soo tababaray markii uu soo noqday waxa isla markiiba isaga iyo intii ka soo baxday kooraska oo 15 kiilo aanay isu dhameyn laakiin qaarkood waxa loo diray dalka Ruushka si loogu soo tababaro diyaarado cusub oo markaas soo baxay oo qaar ka mid ah mishiinadoodii la keenay xamar oo la doonayay in dawladdii jamhuuriyadda Soomaaliya loo deeqo Ruushku ay ugu deeqaan ciidankii loo tababaray inay soo bartaan ee Ruushka loo geeyay buu ka mid ahaa intii ay ku maqnaayeen iyagoo arday ah weli oo la soo tababarayo ayaa isku dhicii jamhuuriyaddii Soomaalida iyo midowgii Sofiyeeti uu yimi dabadeedna dib baa loogu soo celiyay dhammaantood inay ku soo noqdaan dalka gudihiisa oo ay noqdaan ciidamadii cirka ay ka tirsanaadaan marka waa 1977 dagaalkii baa lagu jiraa loo diyaar garoobayaa qaybihiisii ugu cuslaa dagaalkii ka dhexeeyay Ethiopia iyo jamhuuriyadda Soomaaliya dagaalkaas ciidamada wuxuu ahaa duulista intaa kadib tuhun iyo isku dhac iyo dareen laga shaki qabo oo markaa dawladdii ka talinaysay halkaas ay ka tuhuntay daraaddeed Axmed shaqada waa laga joojiyey wixii la odhan jiray buulka ayaa la dhigay oo macnaha in aanu haba yaraatee bixina karin dibadda tegi karin isla markaana aanu shaqo rasmiya qaban karin ayaa la geliyey isagoo xaaladdaa ku jira mar labaad wuxuu noqday Axmed inuu bare noqdo duuliyayaasha tababara waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wasiirka arrimaha gudaha inuu inoo soo galay oo uu ka soo qaybgalay shirkada intaa kadib wixii dhacay ayaa dhacay Axmed isagoo jooga Duuliye Axmed isagoo jooga xamar ayaa 1988 la soo amray inuu ka qayb ka noqdo ciidamadii loo soo diray inay duqeeyaan magaaladan diyaaraduhii ka kacay airportka Hargeysa ee magaalada lafteeda duqeynayay inuu ka mid noqdo intaa wixii ka dambeeyay sheekada waxaynu ka wada hadli doonaa fadhi baynu ka wada hadli doonaa laakiin mid baan doonayaa caawa inaynu hoosta ka xariiqno oo intiina halkan joogta inta social media nagala socota inta live programka nagala socota iyo intii su'aalaha soo weydiisayba waxa weeyaan go'aanka Axmed Gaare uu inooga sheekayn doono iskamay imaninoo go'aan uu markaa gaadhay maaha go'aanka caynkaas oo kale waxa lagu gaaraa dadnimo go'aanka caynkaas oo kale gaadhay waxa lagu gaaraa yaqiin go'aanka caynkaas waxa lagu gaaraa dareen hoose oo bini aadanimo marka waxaan doonayaa inaynu dib ugu noqono yaraantii Axmed bayada gurigaas iyo dareenkaasi halkuu ka yimi iyo siduu ku yimi inaynu caawa gabagabadeena noqoto su'aalaha ugu badan ee dhalinyaradu isweydiinayaan fariinta aynu doonayno dhalinyarada inay gaadhaa waxa weeyaan go'aankaas maalinta uu gaadhay saxsanaantiisu macna may samayseen haddaanu qofku marba xilligu joogo mas-uuliyaddu hayo aanu qaadin oo aanu ku saxsanaanin marka ma aha inaad berrito beelood noqoto ood go'aan adag gaadho oo dad ku badbaadinayso ilaah baa dadka badbaadiyey laakiin maanta xilka ku saaran inay ka mid tahay inaad ka soo baxdo xilka oo bini aadamnimadaada iyo dadnimadaada aad maanta ilaaliso ayuunbaad go'aan caynkaasoo kalena hadhow markay ku qabsato ay kugu kajiso aad ku gaari kartaa marka caawa su'aalaheennu waxay badnaan doonaan bilxaqiiqatan su'aalaha aysi soo weydiinay social mediana laga soo weydiinayna ay u badnaan doonaan Axmed iyo taariikhdiisii iyo sidii uu go'aankanu ka yimi iyo xaqiiqdii dhabta ahayd wixii dhacay
dad aan waxba qorin baynu nahay fursad baynu ka faa'iidaysan doonaa caawa waxaa halkan soo baxdaana uu qoraal noqdo oo uu hadho jiilasha soo socda ee laga yaabo aniga iyo intii maalintaa joogtay iyo axmed iyo idinka qaarkiin inaan idin joogin si ay fursad ugu helaan inay akhriyi karaan oy ka warheli doonaan wixii dhacay maalinta marka waxaad ii ogolaataan inay idin mar labaad ila soo dhoweysaan duuliye axmed maxamed xasan axmed deere bismillah mar kale axmed taariikhdaa koobane aan sheegay miyaad ku daraysaa horta wax inta aanaynu u gudbin aanaynu soo gaadhin halkii aynu cawjo بسم الله الرحمن الرحيم سلام آد وبلارن سلام يا مركه هوري وزيرك iyo madaxda kale iyo dhammaan dhalinyarada iyo nooc kastoo leeyihiinba iyo khiyaarta kale halka iskugu timid waxaan aad ugu mahadinayaa walaalkay jaamac oo noo qabaqaabiyey kulankan aad iyo aad u qiimaha badan oon isku dhaafsanayno waktigaa la soo maray waxaa kaloo ii muuqdaa in hadda dadka meesha jooga ay ugu badan yihiin dhallinyaradana wax badan loo baahan yahay inay ka ogaadaan taariikhdii la soo maray iyo wixii soo dhacay marka aad iyo aadaan idiin salaamayaa markaan u gudbo su-aashaadii waxaan marka hore waxaan ku soo koray aniga bay-ad oo sida caadadu ay tahay dadka soomaalida waxay caruurtooda geeyaan dugsi qur-aan waxay ku tarbiyayaan diinta islaamka halkaasaan ka bilaabay waalidkay wuxuu ahaa shaqaalaha dowladda oo wuxuu ka shaqay jiray wasaaradda waktigii hore waxaa la dhihi jiray jenya bots ama haddana markaa waktigan dambe gaadiidka waxaa loo bixiyaa howlaha guud marka waxaa kaloo ahaa nabadoon dadka dhexdhexaadiya musaalaxa sameeya dadka markay isqabtaan aad iyo aadna loogu kalsoon yahay oo macnaha garta loogu yimaado anigana waxaan ahay mar walba qof dhegaysta oo mataqaan la socda arrimahaas marka runtii waxyaaba badanay ii tarin xataa oo iskuulka iyo waxaasoo dhan aysan ii tarin meeshaas marka waxaan leeyahay waa halka mataqan aasaaska u ah maaragtay tan u fikiraayo sideedanaba qofka markuu yar yahay ayay ku abuurmaan waxa ugu weyn oo qiyamkiisa ah intuu yar yahay ay ku abuurmaan waxa kale waa la kororsan karaa laakiin taa marka yar kugu armuunaysa qofka waa mid aad iyo aad u qoto dheer marka taasaan ku dilla in ay wax badan ii tartay guriga maasha allah waa run bayadda gurigu waa aasaaska qofka waxaan ogahay halka aynu su-aalaha dadku sugayaan waa dhacdada ugu dambeysay adiguna magacaaga iyo taariikhdaada adduunyada ay ku gashay laakiin inta aanan soo gaadhin waxaan rabaa inaan in yar dib ugu noqdo warbixintii aan sheegay maxaa adiga buulka lagu dhigay iyadoon la gaadhin dagaalkii 18 dagaalkii 17 lasoo dhaafay halkuu ka yimi qoonsigu dowladdii markaa dalka ka talineysay waxaa jirtay inqilaabkii cabdullaahi yuusuf oo dhigi jiray inqilaabka dabadii waxaa la qabtay dad badan waxaa kaloo sidoo kale aad u cabsaday oo argagax galay dad badan oo markaas reerkaas ku abtirsanayay runtii aniga waa ay dhibtay reerka yani in reer lagu beegsado dada waxba galabsan waxaa dhacday marka inaan hadli jiray oo aan ka hadli jiray arrintaas marka arrintaas unbaa u sababay ahayd in markaas aan ka hadlayo oo aan lahaa sidaa ma aha halkaas ayay ka timiday intaan buulka miyaa lagu xidhay adiga markaa waa lay xiray sababaha hadda aan soo sheegay darteed oo aan dhibsaday dadka sida wadarta ah reerka dartii loo wada xiray markaa waxaan ku jiray muddaan ku jiray xarigga dabadeedna waxaan galay buul muddo 87 ilaa 86 buulaan ku jiray intaasoo sannadood waxaa kaloo ayadana jirtay nidaamka markaas jiray
markii kalsoonidiisa ay xumaatay in saraakiil badan laga bedelay diyaaradaha dagaalka oo loo bedelay xafiisyo oo uu ka mid yahay matalan bayaasiin oo kale oo loo bedelay marka inay xafiisyada ay ka shaqeeyaan marka waxaan iska xaadiri jiray muddadaas 78 ilaa iyo 86 xafiis aan subaxda iska xaadiri jiray wax shaqana layma diri jiray marka sidaasay arrintu ahayd hargeysa goorma kuugu horreysay oo timi hargeysa waxaa iigu horreysay sanad ka hor 78 markaan 88 markaan imaanayay sanad ka horan halka imid anoo markaas u imid 2 diyaaradood oo halka laga qaadaya aniga iyo duuliyo kale hal habeen ayaan waxaan ku hoyanay hoteelkii hadda magaciisa waa ilaabay mubaarak hotel mubaarak ayaan habeenkaas ku hoyday subaxdiina waxaan ka qaadnay 2 diyaaradood oo aan markaa u nimid inaan xamar geyno oo ahaa kuwa halka markii dambe aan soo noqonay oo dagaalka halkaan ugu soo noqonay markii dambe ee 88 diyaaradu nooc may ahaayeen diyaaraduhu waxay ahaayeen miig 17 miig 17ka labada diyaaradood ee hargeysa ka kaxayseen xamar ku celiseen ee marka dambena lasoo laydinku soo celinayo ma labadiinii qof ee markii hore lasoo diray unbaa mar kasta waday mise cid kale ayaa lagu bedelay waa labadeenni uun aniga iyo nin kale oo sarkaal ah yuusuf yare la yidhaahdo ma isagaa ku ahaa taliyo oo sarkaal darajo sarreeyey mise adigaa ka sarreeyey isagaa iga darajo sarreeyey diyaaradaha miig 17 kusaynu isula fahanno halkan bay yaaleen laakiin diyaarado kale oo markaa dalka hargeysa duqeynayay oo qoriyo saaraayeen ba way jireen diyaaradaha miig 17ka ee gaarka loo xulay iyo diyaaradihii kale miig 19 iyo jasnada ee halkan yaallay waa maxay farqiga u dhaxeeya ee labada diyaaradood looga doortay diyaaradahan halka yiilay diyaarado fara badan ay ahaayeen oo iskugu jira hawk hunter miig 19 iyo diyaarad sahana oo markaas jasna ah waxaa kaloo weheliye diyaarad maalinta timaada oo qaada waxaan idhaahdaa dhaawaca iyo hadba wixii saada iyo wixii qalaba iyo wixii huba diyaarad keentana waa jirtay oo markaa laakiin habeenkii aan hoyan oo habeenkii u hoya jirtay xamar markaad ka soo noqoteen xamar ee labada diyaaradood soo kaxayseen labada diyaaradood sababta xamar loo geeyey ee halkanuun loogaga qaadi waayo dagaalka maxay ahayd maxaa xamar loogu celiyey dabeedna dib loogu soo celiyey halka diyaaradaha labada ah waxay ahaayeen diyaaradii ruushka waxay lahaayeen awood oo ay ku qaadaan bambooyinka diyaaradaha kaloo halka sii yiilay ma lahayn awood ay bambooyin ku qaadaan waxay lahaayeen madaafiic iyo sawaariikh yaryar laakiin bambooyin ma qaadayn marka kuwan waxa loogu doortay waxay aheeday inay bambooyin qaadi karaan oo tiiba ay qaadi karto bambo 2 bambo oo tiiba ay tahay 500 gram marka diyaaradaha saynuu fahanno diyaaradaha magaalada duqeynayay marka laga reebo labadaa diyaaradood oo ah noocoodu miig 17 oo midiiba ay qaadi karto 500 iyo 500 oo kilogram bam ah macnaha 1000 kilogram bam ah diyaaradaha kale waxaa saaraa qoryo waxaa saaraa xabad laga tooganayay waxaa saaraa sawaariikh laakiin waa labada diyaaradood ee keliya ee bam la saari karayay si ay ugu tuuraan magaalada adiga iyo yuusuf baana aawaday xamar markaa ka soo kacdeen ilaa intaa halkan imanayseen miyaydin meel dhexdiisa soo taagteen mise toos baydin uga timaadeen xamar ilaa hargeysa waxaa kaloo rabaa inaan ku daro diyaaradaha halka markaan ka qaadaynay waxaa loogu talagalay in la geliyo kayd in la geliyo maxaa yeele waktigiyaa ka dhacay waktigu markuu ka dhaco diyaaradahana ilaa ama warshad in loo diro weeye ama in maxaan idhahdaa kayd la geliyo oo meel la dhigo oon aan lagu duulin sharciga u qoran injineeradii sameeyey sidaasay ku qoreen marka diyaarada halka markaan ka qaadnay halkaas kayday galeen waxaa loo baahda marka dagaalkan in lagu galo oo bambooyinkaas loo isticmaalo sidaasaa loo soo kiciyey marka intaan joognay xamar waxaa la sameeyey injineerka guud ee ciidanka cirka
ayaa noo qoray maaragtay waraaq oo leeyahay iska tijaabiya diyaaradaha way wanaagsan anigana waa jeegaraynay idinkana tijaabiya marka sidaa darteed anagu waan eegnay inkastoo markaas anigoo aanan jeclayn inaan ku duulo aan weydiiye marka oo sarkaalkii kale oo aan yidhi diyaaradaha sharciga ma waafaqsana marka inaynun sharcigii injineeradii sameeyey ay qoreen inaan raacno oo aan maxaa yidhahda maxay kula tahay marka wuxuu yidhi wax weyn ma aha waa wiig kaliya waxaan soo qabanayna hawshan marka waan iska fulinaynaa sidaasaan mataqaanaa aan ku soo baxnay waxaan ku degnay gaalkacyo oo aan shidaal ka qaadanay marka sidaasaan galabtiina halka ku nimid casarka markay ahayd yaa amarka idin siiyey markaa kasoo baxayseen ma taliyaha taliska guud unbuu amarku ka yimi cidda markaa idin fartay xilkaa in idin soo gudataan gaar adiga iyo taliya yuusuf ciidanka cirka sidiisaba waa xoojin ciidan keligii dagaalamo ma aha marka halkaa laga dalbaday taliyaha halka joogay ayaa waxaa ka dalbaday xoojin ciidanka cirka annagana ciidanka cirka amarkana soo siiyey laakiin halka markaa nimid waxaan markaa amarka ka qaadanaynay taliyihii halka fadhiyey oo generaal morgan ahaa maxamed saciid xirsi morgan ayaa markaa halkan ka dalbaday markay idin timaadeen diyaarado kale ayaa yaalay bayloodo fara badan baa joogay diyaaradaha duuliyayaasha kale dad ajaaniba oo loo soo kiraystay ama loo soo shaqaalaysiiyey inay magaalada duqeeyaan ma jireen mise dad wada soomaaliya bay ahaayeen dadka diyaarada wada waxaa kaloo soomaalida dheeri ku ahaa farsamo yaqaano oo iyo duuliye oo zimbabwe ah oo niman caddaana ah oo joogi jiray baydhaba saldhigga baydhabo joogi jiray ayaa halka la keenay oo halkaa ayagana hawsha ka waday marka waa niman caddaana oo dhalashadoodu zimbabwean tahay oo degan markaa dadka afrikaanka caddaanka ah ee dad farsamo yaqaana duuliyaalna way ku jireen hal duuliyaa ku jira waa sidaa duuliye iyo farsamo yaqaani ah tirada guud maad xusuusataa intii ahaana jaanibka jooga anigu kuley saddex nina arkay saddex qof baan arkay oo mid duuliya iyo laba technic galabtii markaad timaadeen inaydin hawshiina hore u fulisaan buu ahaa qorsho markaydin subaxii timaadeen magaalada waad garanaysay sababta lagu soo faray waxaa ahayd inaydin bam qaadaan oo idinku ridaan cid aad kala hadashay oo aad wax kaaga sheegtay meelaha la duqeynayo strategically magaalada halkaa duqey halkaa ha duqeynin halkaa ma jirto halka waxaa nimid galab casira oo casar gaabad ah marka galabtaa waxba ma qaban airboortka waxaa nagu soo dhaweeyey saraakiishii kale ee sii joogta meesha galabtaa waxbana looma dirin subaxdii dambe waxaan tagnay taliska oo markaas generaal morgan fadhiyey halkaasaan tagnay waxaa halkaas sii joogay waxaa nagu sii diyaariyey sarkaalka sahanka u qaabishanaa sarkaalkaas ayaa waxaa noo raacay baraha ay kula leeyihiin baraha kontaroolka oo buuraha airboortka xaggaa ka xiga iyo dhanka midigta ah halkaasaan tagnay halkaasoo wuxuu naga tusiyey meelihii la garaaci lahaa oo loo baahnaa in la garaaco waxuu noo sheegay meelo badan oo markaas in la garaaco loo baahan yahay akhirkii dambena wuxuu kusoo gebagabeeyey hadalkiisii wixiiba toga xaggaa ka ah waad garaaci kartaan wixii toga dooxa hargeysa wixii xaggan ka soo xigay wixii xagga ka xiga ahay marka dooxa hargeysa xagga shishe waxaa degan ciidankii baa jooga qaybtii 16aad baa ciidamadaas sii jooga laakiin dooxa hargeysa waxaa ka xiga xagga waqooyiga oo dhan way idin garaaci kartaan baadhigi nacam miyay jirtaa in dusha laydinka tusayoo laydin yidhi meelaha la duqeynaya waa meelaha ha marka halka ka soo baxnay diyaarad kaloo sahan oo meesha ayadana tiilay ayaa nagula qaaday waxaa nagula soo wareejiyey magaalada dusheeda ayadana sidoo kale waxaana la tusiyey taargadeedii markaas loo baahnaa in la garaaco marka labadaa ayaa mataqaanaa diyaaradda ayaa wadaya idin tusaayey marka diyaaradda waxaa wada duuliye la yidhaahdo suufi jaylani suufi jaylani galabtii bay idin tahay inay idin kacdaan oo idin magaalada duqaysaan may dhicin sabab may dhici weyn galabtii
galabtii mayo waa kacnay galabtii waa kacnay anigu maadaama barnaamijkaygu ahaa inaan baxo oo Jabuuti galo waxaan ku talagalay inaan subax inaan baxo oo aanan galab bixin marka laakiin sidaa ay tahay waan kacnay waxaa marka jiray arrin aan ku talagalay oo ahayd haddii galab markaa howlna loo diro inaan arrintaa mataqaanaa aan idhaahdo ciladaas inaan soo saaro marka cilad yaraa diyaaraddu ay lahayd oo ah iyadoo hawada ay likid samaynaysay marka waxaama sheegin intaa oo dhan waxaa la galab haddii hawsha lagu diro ciladdaa markaa ku baaqo marka galabtaa waa wada kacnay waan soo wareegnay markaa kadib aniga toosaan u soo degay waan haburgareeyey waxaan idhi ciladaa jirta ciladdaa tusiyey technicianka iyo nin kaloo asagana markaas ciidanka cirka wakiil uga ahaa meeshaan oo isaga faarax siciid la yiraa oo isagana ahaa corneyl oo qaabishanaa saldhigga ciidanka cirka halkan marka galabtii sidaasaan ku fadhiyey marka halkaasaan galabtii aniga ku fadhiyey daraaddeed hadalkaaga waxaa ku jira waxaan go'aansaday inaan Jabuuti tago goormaad go'aansatay inaad diyaaraddu markay kacdo aadan waxba duqaynin ee aad fakato goormay kugu soo dhacday maskaxdaada taa waxaan joogay ba aniga meesha la yidhaahdo balidoogle anoo ka soo bixin ayaa go-aankaygu ahaa inaan iskaga tago horta inaan duqayna go-aankaygu ahaa laakiin waxaan isku haayey sababta markaa inaana duqayn aan ku heli karo markaa ma xanuuna sheegtaa ma hadba say naqonayso laakiin markii ugu dambeysay waxaan go'aansaday inaan la baxsado diyaaradda diyaaraddu markay kacday labada diyaaradood ee miig 17 kuba mar bay wada kaceen si ay shaqada u soo fuliyaan labadaba waxa la saaray min 500 iyo 2,000 oo kilogram oo bama baa la saaray waxa la doonayay in magaalada Hargeysa mar lagu wada rido inta maxaa dhacay halkee bay teedu jihadeebay u kacdeen dhinaceebay dinu kacdeen subaxdii dambe waa la diyaariyey wabooyinkana waa lagu xiray goor aan ku qiyaasaha inay tahay 10kii oo wax yar la waxaanu u kacnay dhanka galbeedka aanu kacnay dhankaas loo kacayay hadba hawadu meesha ka soo dhacayso ayaa diyaaradaha loo kacay marka hawada halkaas ka imaanaysay galbeedka halkaasaan u kacnay marka waxaan gelaynaa marka leexasho midig sida magaalada marka loo soo duqay halka loo soo galo aniga marka habeenkii iyo diyaargarowgii waxaa meesha ugu dambeysay waa taamo ahaa waxaan qaatay marka toos waxaan u qaatay anuu sii koraya marka babooyinka la ridaayo 500 mitir marka la joogo diyaaradda waa la level garaynaa levela laga dhigayaa hadafka markaad hesho markaasaad huurinaysa hadafkaad aad shiishaysaa laakiin anigu koritaankii sii gala markaan qaatay jihada Jabuuti aan qaatay koritaankii aan galay waa la wacay marka waa la yeeray waxa la yiri nambarka waxaan watay 35 maxaa ku dhacay waxaan yiri waa diyaaraddu waa ciladaysan raadiina waa iska dimiye marka maadaama uusan waxba ii tarayn Yusuf waa ka darajo sareeya adiga sharciyan Yusuf markuu kaco adiga ka daba kacaya si ay u fahmaan inuu u sawiran karo xaaladda dhabta ee markaa jirtay Yusuf wuu leexanaya magaalada ku soo leexanaya adiguna toos baad u socotaa raadiyogaad baqtiisanaysa ma markaas bay idinku dambeysay wax xidhiidh ahoo ismaqal ama adiga iyo taliskii mise waxa la isku dayay in lagu joojiyo oo diyaaradda la joojin karo intaan la yeerin ka hor waxa weeye magaaladu waxba kama foga Yusuf markuu galay isla markiiba wuxuu report gareeyay inuu riday report gareeykiisa waa maqlayay markaan aniga toosan u qaatay marka anigana markaas la yeeray raadiga markaan baqtiyana markaas ay ugu dambeysay wax oo xiriir oo la yeesho marka Yusuf wuu riday labadii dabeedna dib uu fadhiistay adiguna waad baxday xageebad ku tuurtay bamkii halku ka dhacay bamkii waxaan ku riday system oo la yiraahdo qarxay oo fiiska oo wato
oo loogu talagalay diyaaradaha markay kacaan ay xumaadaan oo meeshii bombada lagu ridaa la gaari waayo in bombooyinkaas lalama digi karo sharciga bomba diyaarad lagu lama digi karo mar kale sidaa darteed waxaa loogu talagalay system oo iyadoon qarxayn la ridi karo marka waxaan ku riday systemkaasaan ku riday markaan ka baxay magaalada oo naasaha bilood geeskeeda markaan xoogaa sidaa u dhaafay meel cidlaha ku rida marka sidaa ay ku dhacday diyaaradaha labada miig 17 mooyaane diyaaradihii kale aynu sheegnay si joogtaa bay u kacayeen maalintiiba mise jeer bay kacayeen mis dadka magaalada ka baxay ee ka qaxay geed deeble ama ha noqoto ama meelaha kale si ma ka daba tegayeen mise magaalada gudaheeda uun bay duqeynayeen maalinta aniga hal waxaan joogay maalin oo kaamil ah iyo galab casir oo nimid waqti inta ka hartay iyo maalintii kale subaxdii aroorta ilaa 10 subaxnimo inta muddada ah waxa weeye waa la kacay diyaaraduhu way kacayeen wayna kuna noqonayeen meelaha ay garaacayeenna matalan hantartu waxay u badneed geed deeble hantarta diyaaradda hantarta ah oo nimanka Zimbabwe ay wadaan waxay badanaaba garaacaysay geed deeble diyaaradaha kale oo mig 19 ah ayagana waxay garaacayeen dibadaha laakiin annaga oo 17 waxaan ugu talagalay magaalada gudaheeda inaan garaacno marka sidaas u kala qaybsanayeen imise bamba lagu talagalay in la qaado oo lagu tuuro magaalada si labada bambo oo kunka kilogram ah waxay qaadanaysaa markay ugu badato 15 daqiiqo ay waxa dhan ku fulayaan marka maalintii intee la geli karaa marka adiga qiyaas waxa weeye 15 daqiiqo ilaa laga rido inta lagu xirayana kama badna idan 15 kale marka 30 daqiiqaba mara la tuuri karaa marka kulay aniga ma sii joogin laakiin waxaan maqlay in lagu naqo karo oo intaasna uu ku naqday ninka iga dambeeyay markii adigu aad ka baxday xuduudda ee aad bakhsiisatay radioga Djibouti intaad ku gaadhayso shidaalkaad haysato iyo niyadaada adigu waxaad dareemaysay shidaalka welwel kama qabin shidaalka laakiin waxa ay soo gashay arrin aanan ogeyn oo ahaa aragtida xumeed waxaa jiray khamaasiin marka waxaa dhacday in aragtida ay xumaatay inaan kontaktiga dhulka maadaama aan raadar iyo wax la shaqaynayay jirin kontaktiga dhulka inuu uga maqnaa marka waxaan ku socday saacad iyo waxaan ku socday direction marka waqtigii markaan abaaro markaan joogo waan degay waxaan arkay inaan tajuura golf tajuura inaan joogo dib baan u soo noqdo markaana waxa weeye shidaalkii oo gabaabsi ah oo 400 litir markay ka harto waxaa daarma emergency na lahaa daarma emergency-ga ii daarmay markaaba waxaan go'aansaday inaan ama dego waxaa markaa layska raba in la dego ama laga boodo sidaa darteed waa markaan eegay meeshii aan marayay ilaahi subxaana watacaala fadligiisa waxaan helay meel markaas isku day in lagu dego la isku dayi karo laakiin aysan hubaal ahayn sida ay naqon doonto marka dambe marka halkii aan mataqaan tawakalay meeshii aan ku degay waxna ima gaarin ilaahay fadligiisa diyaaraddii waad fadhiisisay tajuura waxa weeyaan marka waad dhaaftay Djibouti waad ka gudubtay airportka waad dhaaftay waa sababta shidaalku uu go'ay ciiro daraaddeed waad arki weyday waxba markaas si emergency baad u degtay meeshaas waa meel cidla ah tajuura maaha meel cidi degan tahay yaad kula kulantay mase ku dareemeen raadaarku ile diyaarad soo gashay baad arkay ma ku dareemeen raadaarka Djibouti waxaan markaan degay waxaa soo dul maray laba diyaaradood oo miiraaj ah markaan kabinka anoo ku taagan intaan soo baxay ayaan waxaan arkay markaa laba diyaaradood oo miiraaj ah dhaafay meeshaan ku degayo waa meel cidla ah oo cidna aysan joogin magaalada waxaan halkaa ka arkaa magaalada oo maxaa la yidhaahdaa magaalada ya tajuura waa ka magaalada tajuura waan arkaya laakiin waxaa noo dhexeeya bad
aad u weyn aan oo dhexayso lama gaari karin marka laakiin waxaan ogaa kaartada waxaan ka arkayay gadaasheeda inay ku taallo waddo oo adiga xoogaa inaan sii socdo ay tahay muddo meeshana waxay ahayd meel buur ah oo jabal ah marka jabalkii aan koray waxaan arkay marka waxaan helay kalluumaysato oo geesta gadiga maaha geesta kale joogta kalluumaysatadaas ayaa gacan isiisa oo la hadlay oo niman cafar ay ahaayeen carabiga kula hadlay marka nimankii ayaa mataqaanaa magaalada geeyey jabuuti dowladda jabuuti maamul ahaan sidee bay kuu qaabileen markay ogaadeen xaaladda dhabtaa inaad nin diyaaradda soo baxsaday runtii dowladda jabuuti markiiba waxaan u goostay inay yihiin dad walaala oo maxaan idhahdaa aan wada dhalanay sidaasaan uga doortay waddamada kale oo jaarka nahay marka soo dhoweyntoodii aad iyo aad ay u wanaagsaneed waxaanay igu wareejiyeen united nationka xafiiskoodii ay igu wareejiyeen laakiin sharci baa jiray jamhuuriyadda soomaaliya iyo jabuuti oo lagugu soo celin karayay adiga xidhiidh ka dhexeeyey labada waa la socday in markaas sharci uu jiray oo mataqaanaa ay suuragal ahayd in mataqaanaa la celiyo laakiin waxaan idhi kolleyba haddii aad dhimanayso gacan walaalka ku dhimo oo macnaha jabuuti waddadaan walaalnahay marka sidaasa ku dhimo wasiirka arrimaha gudaha ee jabuuti maxaa istidhaahdeen markii aada lagu geeyey wasiirka daakhiliga oo arrimaha oo jabuuti ayaa maalintii dambe laga geeyey nin odaya oo aad u wanaagsan uu ahaa marka wuxuu yihi axmedow soo dhowow waddanka waa kuu furan yahay laakiin nabadgelyada darteed ayaanan mataqaanaa aan jeclnahay inaan meel kale kuu gudbinno annaguna waa ku nabadgelinay adiga dad walaalaha nabadgelisa annaguna waa ku nabadgelinay sidaasuu yidhi wasiirka marka wuxuuna igu wareejiyey marka nimankii meesha jooga adiguna dad walaalaha baad nabadgelisay annaguna walaalaha baana waanu ku nabadgelinaynaa marka laakiin maadaama aanu ku nabadgelin karin UN-kaanu ku dhiibay UN-ka maxaad ka dalbatay marka adigu UN-ka waxay weydiiyeen marka waddankii aan doonayo waxaan ku yidhi waxaan doonaya waddanka sacuudiga waxaan aniga markaa u fikirayay iska cibaadayso halkaa intaad iska tagtid inta ninkan hadda odaga oo meesha jooga kulleyba hadduu ku bato bilo ama sanad uu sii joogaya marka dalkaa iskaga noqonaysa marka nimankii united nationka ayaa waxay yidhaahdeen meel kale noo sheeg halkaa waxba lama qaato marka meel kale noo sheeg marka waxaan yidhi inta kale iskuulkay waa meeshaad heshaan waxba kama qabo meel alle meeshaad heshaan waxaan doonaya inaan hargeysa kusoo noqono laakiin intaanan kusoo noqonin muddada aada jabuuti joogtay koobnayd markan dambe ee aada luxemburg tegto waktiga intaa leeg marna ma kula kulantay ama baqdin amba maxaa la yidhahdaa warwar ama ha jiro ama yaanu jirine in cidi adiga ka aargoosanayso ama cidi rabta inay ku disho ama ina cidi aana kugu raacdo arrinkaa aada samaysay daraaddeed wallaahi xaqiiqdii horta anigu nafteeda horta aada uguma baqo runtii waxaa qofka dadka baqa oo runtii ma yihin ama wax lagu yeelaa iyo ama wax lagu geystaa isma iraan marka wax cidna lama kulmin hadda cidan mayahan dadda ama waxay tiraa ama war maan arag taa kasoo horjeedkeeda sidee bay ummaddu ama ha noqdaan reer somaliland ama ummadda kale ee islaamka ama ummadda kale ee hadday doonaan islaami aanay ahaynine bini aadamnimadu ka dhaxaysa siday u dareemeen ay usoo dhaweeyeen arrinkanaad runtii qof walba oo arrinkan maqlo ama aan kulanno si aada iyo aad ay mataqaanaa u qadarinayeen marka wax wanaagsan aad samaysay iyo mataqaana si aada iyo aad ay u qadarinayeen inkasta oo aniga nafsadaanteyda xaqiiqda marka la yidhaahdo inaan wax sameeyo inaanay ila ahayn haba yaraate oo aan la dhihi karin maaragtay waxbaan sameeyey waa runtii waxay ila tahay maaragtay
in laga badiyo oo kale maaragtay sidaas oo kale u arka xaqiiqdii. wixii saxsanaa baad samaysay. Waa gartay. Hargeysaan kusoo noqonayaa inta aanan waan ogahay su-aalo fara badan baa jira oo lana weydiinayo. Yuusuf ma nool yahay? War ma ka haysaa ninkii ayd wada socoteena aydin jidka soo wada marteen hawsha adag soo wada marteen? Yuusuf Yare geeri kuma maqal, waxaan warkiisa iigu dambeysay isagoo jooga Iskandariya. Taasaa warkiisa iigu dambeysay. Waxaan doonayaa su-aalaha inuu soo gudbi doonaa haddii alla idmo. Su-aalaha badankooda wixii hore laysu weydiiyey social media ay naga soo weydiiyey waxaynu gelinay wada sheekaysigan baynu dhex gelinay. Waqtigaynu haysanaa aada uma badnaa. Waxaan jecelahay markaa in fursadda ugu weyn aynu siino dhalinyarada si dhalinyaradii maalinta aan jirin majority-ga inta halkan joogta in wixii ay tabayaan su-aal ay weydiinayaan ay toos u weydiiyaan Axmed, oo aynu faalladana koobno su-aalna weydiino si aynu waqtiga aynu uga faa'iidaysano. faraxsanahay inaad nala joogto. waxaan anoo ku hadlaya afkayga iyo afka inta ila dareenkaaba aad kuugu mahadcelinaya. aad baad mahadsanta. aan toos u galo su-aasha. waxaan ku daba jiraa taariikhaha noocaasa oo iminka muddo 3 sannadood baan daba socdaa. marka waxaan doonaya inaan weydiiyo Axmed, maalintii aad diyaaraddu kacday ee iminka iyo taariikhda nooga sheekeynaysay, taariikhdii maalintaa dheydkii waqtigii ay ahayd. magacay waa Cali Cabdiraxmaan Cabdilaahi. waxaan duuliya weydiinayaa waqtigii uu ka yiminayay, waxaan filayaa inay Muqdisho ahayd. qoraal baan ku arkay, waxaan la soo tirtay nin saaxiibkay ah oo i odhanaya anigu reer Hargeysaan ahay, waxaad samaysaa Hargeysa dhinacaanu ka degna mooye dhinaca kale haddii aad duqeynta samaynayso ku samee. miyay jirta arrinkaas? waxa weeyaan duuliye Axmed Dheerow, inta de waqtiga ka hadhay weligeedba Soomaalida uu ka dhex jiri doonaa, ama Somaliland ba ama geeska Afrika ama Afrika ama dunidaba uu ka dhex jiri doonaa qof keligitaliyaal. marka maxaad ku talinaysaa nin waayo arag baad, maxaad ku talinaysaa mustaqbalka in lagaga hortago keligitaliyayaasha soo socda? waliba waqti dheer ka soo wareegtay. haddana maalintaas waxaan filayaa inay ahayd 12 Juulaay 1988. 12 Juulaay sidaasaan qiyaasay. arrintaas ma maqa, haddii la sheegi lahaana kolleyba sidaa ma yeeli lahayd. waxba layma sheegaya. runtii Cali waan u mahadnaqayaa su-aasha inuu weydiiyo, waayo su-aashaasi social mediahana way ku jirtay. waanaan ku faraxsanahay alxamdulilah rabbilcaalamiin. taarikhdu waxay ku wanaagsan tahay iyadoo xayl laysu yahay in la caddeeyo. marka inuu duuliye Axmed inoo sheegay sheekadaas inaanay jirin. qofka ay wada shaqaynayeen ay la wada socdeenna waa ninkaa taliyaa uu ahaaye aan magaciisana aan halkan ka sheegay. marka maaha arrinkaasi ma jirto saynu ogaano. keligii taliya wuu imanayaaye maxaa lagu talinayaa si looga hortago keligii kala tali? horta ibni aadanka inta uu jiro wuxuu raadinaya inuu xor ahaado, xorriyaddiisa u ilaashanaya ilaa abid. weligeedna waxay aheeday labadaa waa iska soo horjeedeen, in xorriyadda gruub xorriyadda inay ka qaadaan rabaan, iyo gruub iyo dadkii oo xorriyaddooda inay ilaashadaan rabaan. marka ilaahi subxaana watacaala wuxuuna farayaa inaanan ogolaan xorriyadda in nagala qaado. dadka xataa ogolaanaya in xorriyadda laga qaado waxa weeye ayaga laftooda dembi waxbay la qaybsanayaan. qur-aankana waa tilmaamayaa oo maxaan idhaahdaa uuna sheegaya, wuxuuna leeyahay matala ayadda qur-aanka waxayna leedahay acuudu billahi min ashaytaan الrajiim bismi illaahi الraxmaan الraxiim walaa tudic ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر بارك الله فيك واتبع هواه وكان أمره فرطا.
lama rabo marka in la iska raaco qofka maxay yidhahdeen raaca laftigiisa dembiga waa la qaybsanaya oo waa la mid marka waxaana looga baahan yahay qofka xaakimka ahuna inuu ku dadaalo inuu ka fogaado oo la tashado oo taliyayaal wanaagsan yeesho qofka maxkuumka laftiisana inaanu iska tawakalin oo dhihin ninkaas gruubkaasa hawsha noo haya oo ayaga laftooda ilaashadaan xorriyaddooda oo maxay yidhahdeen annagoo kale hadda matalan jiilkeennii muddo 20 sano ah ayaan iska aamusnayn oo sidii la doono nagala yeelay marka waxaa la rabaa in la wada ilaashado nabadda iyo khayrka la haysto oo xorriyaddaas kulli la wada ilaaliyo xaakim iyo maxkuumba inay ilaaliyaan haddii kale labadaba waxaa waye meel cidla ay soo istaagayaan marka waxaan doonayaa sheekh dalmar ilaahay khayr siiye wuu ina caawiyey ina xasuusiyay aayadda qur-aanka marka sheekh dalmar baan u dhiibaya mikrofoonka بسم الله الرحمن الرحيم runtii isbaan lahayn dee maanta halkan hadal baa kaaga furan laakiin mar haddii laygu soo wareejiyey wax kale maha waxa weeye horta adduunyada magac baa ka hadha wadikru lilmar'i cumrun thaanin baa ka mid ahayd weedh gabay carbeed ah xasuusta qofka la xasuusanaya magaciisa la hadal haynaya cimri labaad marka uu xijaabto adduunyadan uu ka qarsoomo uu helayo ayay u tahay waxaana isleeyahay axmed deere wixii iimaankiisa iyo yaqiintiisa iyo damiirkiisa uu ku baraarujinayay buu maalintaa yeelay innagu inaynu hadal hayno oo taariikhda ku sugno oo inta aynu nool nahay aynu is eeganayno iyo inta uu hadduu dee la joogi maayo dunidane inta ka dambaysa mar walba ducada in lala ogaado laakiin abaalka uu helayo biidni illaahi tacaala halkan maaha waxa weeye maalinta loo baahan yahay yacni xasanaadka iyo raxmadda ilaahay maalinta loogu baahi badan yahay ayaynu rajaynaynaa annahuba yani ilaaha kariimka ah ee xaliimka ah ee quluubta eeganaya muطalic cala alquluub abaalkiisa maalinta loogu baahan badan yahay ayaa isaga oo makfiro dembi dhaaf iyo janno iyo naciimka aan laga guurayn إلهي يقدر يتوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو سكرية فيصل عقب دولي أحمد وحن ويدينا يا واحد شري بوك تاريخ ونرش هذا كوكر سو إنجليش كوكر را ومبرت تويتر كوارك بوكي مرة ما يسي وحورة هاتو صوب حينا ونور شيء سعد من حسنت بسم الله من قوة رسالة كفر أحسن هنا مكاركينا wadna hor taaganta anaa in badan waraysiyadaada ka eegay youtube-ka kana daawaday su-aashan ku weydiinaya waxay tahay marun ma islahayd adigoo hargeysa in badan arkay oo dadkii maxay tole diyaaradaha waday ka mid ahaa hargeyso sidaa u qurux badan iyo dhalinyarada sidaa u qurux badan oo weliba ragga qiimaha ku jiraa dhaleen بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa xamse axmed cawaale runtii aniga lafteedu su-aal ma hayo laakiin waxaan rabaa duuliye axmed deere inaan runtii u sheego in dhammaan dhallinyarta reer somalilan meel walbo ay joogaan dal iyo dibadba ay u hayaan abaal maguuraana xataa aanay iloobi doonin noloshooda inta ka dhiman dhalinyartaasi ma aha keliya dhalinyarta hargeysa ku nool laakiin dhalinyarta somalilan meel walbay joogto xataa ubadkaygaan uga sheekayn doonaa sida annagaba aabbayaashay iyo adeeradayaashay iyo dadkii waktigaa joogay ee mujaahidiintii xaqudarirka ah ee snm ka joogay annagaba ay noogu soo barbaariyeen jacaylkaaga iyo wanaagaaga annaguna kuwa aanu dhali doono iyo kuwa ay sii dhali doonaan noloshaada mid la iloobi doono maaha aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsantahay jaamac muuse jaamac axmed deere runtii wuxuu sameeyey gobonnimo aada u weyn wuxuu sameeyey soomaalinimuu sameeyey wax aada loogu ammaani karuu sameeyey laakiin markan anigoo hargeysa joogoo dhalinyara waxaan u qabaa in halganka uu isaguba qaybta ka ahaa
waxaana loogu sheekeeyaa oo manhajka ku jirta inay sameeyeen beesha dhexe ama idoor laakiin inay jireen dad soomaalinimo qaaday qiiro qaaday oo cid oo ahaa beeshu iyo hawiye ogaadeen laga soo helayo maxaana loogu sheegi waayey inuu ahaa halgankaasi ama manhajka loogu dari waayey inay jireen dad xumaanta ka dhidhiyey oonay ahaynun beesha dhexeysa waad mahadsantihiin magacaygu waa yaxya cabdikariin cali axmed dheeraad baan u salaamayaa iyo martida kaleba horta maanta alxamdulilah fariintaadu horena waynoo soo gaadhay caawana waynoo soo gaadhay aad baan u jecelahay inta ila midka inay taariikhaha iyo cidda maxaa la idhahdayey abaal iyo ajar baynugu leey inaynu taariikhahooda ururino runtii allan fariinun baan usoo jeedinayaa khaasatan xukuumadda waxaynu aragnaa dad badan oo bilad sharaf la siiyo shahaado qaran la siiyo axmed dheer wuxuu istaahilaa in bilad sharaf ama bilad qaran in la siiyo كل سومالان أبالي أشر بدن بو قلي خاصة رير جيس واللي بأشر كاي أبال كان ويوهيان تكلم سوتش ديني وحوي كلي إيك بدن بو كفو هذه أما عيد بدن بو أحمد قرافان لها إلهي بوافجي هل كاسنا أشر يو حسنات يد مدافع هل كاين إلهي وجرا ومحل رمال تقيامها لقى حساب لها هل كاسنا وحوي قوم يمحل على قبل ما كانوا سميه تسوتش ديني وحوي فرينتنا سؤاشي إن حاجة دم فديبا سؤاشي ويدي إن تاريخ ذا وعاون لو ذاقي إنه بوكو روريو تاريخ ذا نسوي ناقصن لو آخر سن كريو ويا عاو إنت فديدال كني ويداوانيا لكن إنت أنا قد دور كيجي كوتشرتايا كبدن وآخر سن دون ترونتي أدبو ما سيحمد. سؤاش هذا كهريو إن أمستي إنترناشنال إيو هيوم رايت واتش وحي قدسين إن سومالان كدعين إن gobolada Soomaaliland xasuuq ka dhacay adigu ma aaminsantahay inuu ahaa dagaalkii gobolada waqooyi waqtigii 88kii lagu soo qaaday haddii aad aaminsan tahayna buugaaga iyo taariikhda dunida la wadaagayso ma ku qori doontaa taasi waa su'aal soo jeedin baan caawa halkan uga halka fadh hargeysa waxaa ku xidhan inaan yar oo adeer u yahay أحمد ديرة ويهر فديا وحلوه حري إنه عبي هاي عرق مالية دم أنت دليل هذا بيكور هاي أبانو مالينا يا أول ويت ناقش شيء أنا قلنا بدباديس نولا شيء ذا بدباديس ترى إنما ما هي هكا فديا لعلك إنه هرجيسة كنت حري هاي مثل لما بلولا أو حري هاي شاك فيا بدعبت عالم كصومالي له waxaan madaxweynaha sharafta la kacsanayaa dekaasiba waa adeerkii baa anaga badbaadiyay idinkuna maanta inaan kaa yar ee hooyadii xamar ka soo ooyeyso ee tiri agoon weeyaan ay soo ooyiday inaad fadliga axmed dheere ku sii daysaan waa iga codsi waanad mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو محمد يوسف عمر نورت آدم كوجم هالنقيا horta anigu waxaan ka mid ahay dhalinyaradii jirtay xilliga ay dhibaato soo dhacaysay qalbigeena aad iyo aad bay weli ugu jirtaa xasuustii iyo wixii dhacayay su'aal ma qabo laakiin waxaan rabaa mahadnaq gaar ah way bariga waxaan xasuustaa anigoo xoriyana ay hooyaday xambaarsanayd diyaaradii waxaa duqeynayay waxaan xasuustaa inta geed loo gasho aan cumar waad soqdaysay ayaan xasuustaa marka haddii aad tahay dadkii bariga garti damiirku siiyay inaad badbaadiso ummadda waxaan mahad ayaan ku hayaa gaara waxaan ku leeyahay jazaa allah khayr waad mahadsan tahay الرحمن الرحيم مرسينا شرفت له وزيرك دليرada كل يوم waxaan ku wada salaamayaa salaamta islaamka waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu axmed duli axmed inta badan waa wada joognaa waxaan ragga la socda aad laakiin maanta waxaan u mahadnaqayaa jaamac iyo xarunta dhaqanka inay fursad siiso in dhalinyaradu waa dad badan baa cid walba wax doonaysa inay aragto imika inta barnaamijka ku jira doonaya inay qaabajo dee way fara badan yihiin marka in sidan oo kale meel weyn oo dad badan dabcan looma wada dhamma laakiin in badan fursada u helaan weliba dhalinyarada waanan jeclahay in dhalinyarada xorriyadooda inay mar walba cabiraan oo cidna inaanay la caburin oo mar walba xorriyadooda xaq u leeyihiin aad iyo aad baan isku taageersannahay moodinana odayaasheedu inaan mar walba idinka soo horjeedno waan ku taageersannahay taa markaan ka tago
su-aasheedu su-aal yar weeyaan oo laga yaaba inay yaro dhaaftay waxaan ka dhex helay sheekooyinkii axmed alwejo axmed markii waxaa siduu noo sheegay nin yuusuf yaro la yidhaah oo isna dowlayaha weliba ka sarreeyay ayay wada socdeen waanay wada yimaadeen axmed intaa soo wada socoteen sheekamadin dhex martay ku saabsan hawshan afulidii addoonta maxaase laga yidhi muxuuse isagu ka yidhi maxaase ka tiri buuggii runtii waa bilaabay laakiin weli waa dhiman yahay dhamaystirkiisi marka insha allah waa markaan dhameeyo waad ka wareeli doontaa boqolkiiba boqol xasuuqo wahay taasna waxa weeye aniga kaligay ma oga laakiin waxaa in badan waddada ka warqaba taas diyaaradaha meesha garaacayay waxaa ka tiro badnaa madaafiicda oo aan la yaabanaa oo habeenadii aniga habeenkaan soo hoyday iyo habeenkii laba habeenaan seexday labadii habeen xataa habeennimadii waa socdeen madaafiicda marka waxaan garan waayaba meeshaan joogo runtii oo waxaan idhi waxa sida la yeelay maxay tahay waa wax maskaxdayda ka weynaaday inkastoo aan la socda raadiyaha balidoogle markaan joogay in meesha dagaal ka jiro haddana ilaa heerkaas inuu yahay marna uma malaynayn marka xasuuqaa jiray boqolkiiba boqol oo run ah oo aan ahayn wax laga badbadiyey aniga iyo yuusuf waxay marka hore laba maran anaa bilaabana sheekada mar waxay ahayd markii diyaaradihii meesha la dhigay in la kiciyo la rabay oo aan idhi diyaaradahan sharciga ma waafaqsana marka ma joojina oo ma dhina aniguba sharciga waa naqano waa garanaynaa ilaan sharciga waxaa qoray nin ruushahaa qoray waa wada garanayna marka waxaan idhi ma nidhaahdaa sharciga ma waafaqsana marka waa ka gaabsaday oo waxaan arkay inaanu arrintaas ku soconayn tii kale labaad waxay ahayd markaan gaalkacayn nimi oo anagoo gaalkacay fadhinoo qadaynayna maalintaa inta diyaaradaha shidaalka lagu shubayay ayaa waxaan idhi yuusuf halkaanuu ka shaqay jira marka weligii halkaanuu ka shaqay jira hargeysa saldhigga hargeysa uu joogi jiray in yar maahe oo waqtiyada dambe aa laga bedelay marka aniguna hal habeen keliya aan ku weydo markaa ka hor waxaan idhi marka yuusufow magaaladaadii way marka see arrintan seen u fulinaynaa aniga laftigeyga waxbaan dareemaya marka arrintan say kula taha adiga saad u aragtaa marka wuxuu yidhi waxa kan mas-uuliyaddeeda anaga ma lihin mas-uuliyadda amaraan fulinaynaa laakiin mas-uuliyadda dadka kala qaadaya anaga ma qaadayno sidaas uu jawaab labadaa maraan marka labadan dhex martay halkaasna mataqaanaa warkeenu ku ekaa kadib su-aalaha kale badankoodu waa su-aalo ama u socda madaxdeena dowladda somaliland fariimo fara badan iyo meelo badan aynu ku wada hadlaynaana way jirtaa waxaan jecelahay su-aalaha ku saabsan axmed dabcan axmed baa ka jawaabaya fariimaha kale ee ku socda madaxdeena kuwaynala jooga iyo kuwayna daawanayana dhegahoodu way u furan yihiin afkooduna wuu furan yahay falkooduna wuu furan yahay inay ka falceliyaan oo ay ka jawaabaan aad baan ugu faraxsanahay inay dhalinyarada somaliland xorriyadu haysato inay tidhaahdo ay u sheegto waxay doonayso ay madaxdooda iyo dadkooda iyo aqoonyahankooda u sheegato arrinka ah in dhalinyaradu la kulanto axmed waa arrin muddo laga shaqaynayey waana run sidaa la sheegay axmed cid kasta way soo dhaweynaysaa cid kastaana way doonaysaa inay gaargaar ula kulanto waana sababta aanu habeenkan caawo ah dhalinyarada gaar uga dhignay oo weliba jecel lahay su-aalaha iyo fariimaha oonu uga saaray khudbadihii in ay dhalinyaradu weydiiyaan axmed iyagu halka ay doonayaan su-aalahay doonayaan inay weydiiyaan waxa weeyaan maxamed cabdi laba su-aalood baan weydiin lahaa duuliyaha waxaa jiray sidaad ka dhawaaqisay diyaarado hantara oo duqeynta ka mid ahaa berigaas statekii duqeynta hargeysa ku jiray diyaaradaha hantarka waxaa imaaraadka ku wareejiyey dowladdii soomaaliya marka waxaad noo sheegtaa imaaraadku dagaalkaa maanu ogeyn xaggan ka socday xilligu ku wareejiyey diyaaradahana waktigaana noo sheeg dhowr state baa la sheega laakiin waktiga ahayd toos noogu sheeg sidoo kale duuliyayaal waxaa jiray ajaanib oo south africana la sheegaa zimbabwena waa sheegtay ku jireen laakiin qaar south africana maani ku jirin oo calooshadu shaqaystayaasha ah 2010 ayay ahayd markii koowaad imperial hotel aan axmed sidan oo kale kulan loola wada yeeshay
berigaa runtii waxaan islahay qoladaa kulmiyey xukunka waqtigaa qabsatay taallooyin weyn baa loo dhisi doonaa weli waanu sugaynaa haddaanu dhallinyaradii nahay abaalkiisa ma gudi karno axmed taa axmed ku socotay weydiinaya waxa weeyaan markaa duqaynta socotay dareenkaagu sibuu ahaa marka iminka diyaaraduhu kula soo dul marayaan hargeysa iyo maalintaa dareenkaaga maxaa farqiya u dhexeeya dareenta waan salaamayaa duuliye axmed aad baan ugu mahadnaqay go-aanka casimeed loo qaatay su-aashan weydiinaya waxay tahay axmedo waxaad ka mid ahay duuliyaashii markaa u shaqeynayay dowladdii xilligaa talada haysay markii laydin keena hargeysa ee laydin qabanayay laydinkala tusayay magaalada ma isweydiisay adigu ama ma weydiisay maamulkaa sarreeyey waa maxay sababta ugu weyn ee loo duqeynayo maxay toolay dad soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo maxay ahayd too dad shacaba marka aad ma isweydiisay su-aasha ama madaxda ma weydiisay waa maxay sababta ugu weyn ee loo duqeynayo dadkaas su-aashan weydiinaya aad baan u mahadnaqay xaqiiqdii maalintii aan halka ka tegayo oo intaa garoonka laba bamba ka qaaday aan halkaa kala baxyay jabuuti oo magaalada xaaladdeeda ogaa rajo badan ma qabin haddana qofka muslimka rajo kama dhammaato oo mar walba inuu rajo qabo weeyo oo ay laga baxayo wax kastoo dhibaato ah inna maca alcusri yusra mar walba waa aaminsanaa marka laakiin aad iyo aad wax tiiraanyo iyo xubin badan ayaa mataqaanaa niyadeyda ku jirtay oon lasoo koobi karin marna waxaa u dhexeeyey imaaraadka markay diyaaradaha bixinayeen iyo dagaalkan waqtigoo bilaabanaya iskuma dhoweyn mudday waxay fadhiyeen saldhigga baydhabay muddo fadhiyeen in muddo ah dhowr sano ah haddii aanay ka badnayn 5 sano waa dhammeen haddaanay ka badnayn marka dagaalka waqtigiisii iyo mudday u kala fogay marka ma filayo imaaraadka inay dagaalka dartiis diyaaradaha u siiyeen oo markaas ma filayaba xataa inay ay jireen jabhadaha South Africaanku waxay ahayn caddaan keliya marka horeba aniga waxaan ku arki jiray baydhabo saldhigga baydhabo markaan tago halkaasi ayaa saldhig u ahaa marka la keenaba laakiin qof kaliya oo caddaan oo madow ah lama socon intoodaba waxay ahaayeen caddaan South Africaana tiradoodu markay baydhabo joogeen 3 way ka badneed laakiin halka lafteeda inay 3 ka badnaayeen in kale ma ogi maxaa yeelay muddo yaraan joogay laakiin anigu markaa waxaan arkay 3 aan arkay markaa aniga intii isheedu qabatay su-aasha abwaanku waxay dambeysay su-aasha maxamed ina weydiiyey waxay ahayd ma isweydiisay markaad kacaysay adigu sababta ama ma weydiisay naftaada ama dadka kaa sarreeyey sababta dadka loo duqeynayo nafteyda dee waaba weydiiyey taas waa sababta loo duqeynayo dadka shacabkii iyo dadkii waa isweydiiyey jawaabna waa heli waayey iyo waxaan ogaaday marka cid kaloo la weydiin karana ma jira hadda xorriyadda idinka waxaan arkaa su-aashaas oo kale maxaa loo duqeynaya haddaan idhaahdo marka waxaa weye tiira laga soo raarici lahaa marka isla markiiba marka waxaa weye sidaa xorriyaddaasu ma jirin waqtiga safar baad minka ka timi waad hargeysa ku timi diyaarad baad kusoo dul martay markaad diyaaradda dul marayso hargeysa ku dul marayso maxaad dareentaa runtii waxa weeye maalintii dhoweyd labadii waqti oo nimi khaasatan maalintii dhoweyd magaaladu waxaan arkay aada u ballaaratay oo maxaan idhaahdaa aada u qurux badan marka farxad iyo waxaan dareemayaa iyo ilaahay nicmadii uuna siiyey marka alxamdulilah aan leeyahay marka insha allah maxay ahayd South African iyo muxuu Zimbabwe horta waxay ahayd 1982 bay ahayd nimankan waxay ahaayeen Zimbabweans baasbooradoodu Zimbabwean baa ku qornaay laakiin si waxay ahaayeen Ian Smith ninkii la oran jiray South Rhodesia ayay ka yimaadeen soo maad garan anigu waxaan ahaa ninkii sarkaalkii soo airportka ka soo kaxeeyey
dejiyeyna guurguurtay hodheelkii guurguurtay la oran jiray marka waxay ahayd saraakiisha meesha joogtay dad af ingiriisi ku hadla way ku yeeraayeen marka sidaas awgeed ayaan anigu u soo dhaweeyey waxaana keenay nin la oran jiray jaamaca buluug ayaa qoladan soo keentay marka waxay ahaayeen dadku ay ku qaldamaan waxay ahaayeen waa Zimbabwe passports bay siteen oo markaan dee guurguurtay geeyey baasaboorradoodii oo dhan baan ka qaaday anaa u foomamkii buuxiyey markaas Zimbabwean passport bay waxayna ahaayeen muxuu ahaa Air Force Ian Smith waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo waxaan arkaa Axmed Awgeedi oo inala fadhiya Axmed maanso uu tiriyey baa jirta oo aan arrinkan Axmed gaar ula xidhiidhin laakiin wixii dhacay iyo sida aanay waxaasoo kale adduunyada hore in maansada maalinkii 2010kii ayaa hore loo akhriyey marka caawa waxaan doonaynaa haddii alla idmo maansadii halkan kama akhriyi doono waqtigaynu haysanaa wuu yaryahay maansada way dheertay laakiin waxaan doonaynaa in barnaamij baa laga sameynaya Axmed waxaan ugu yeedhay marka in la duubo oo barnaamijkaas iyo maansadu ay noqdaan laba iskaaba oo taariikhda dhabtaha ka sheekeeya horta anigu waxaan ka mid ahaa dadkii xilligaa beeradaasi duqeynayeen anigoo yar oo ah dadkan xaynka qofka qabsadee daba orda joogana meel idhaahda gadhiyago ayay laba dayood nagu soo kacday deetana duqeyn bay ka geystay meesha duqeyntii markay geystay nin iga weyn oo waalaa wada soconay waxaa la odhan jiray qofka shaarka cas leh ayay aragtaa geedka ha la hoos galo xaggan ha la sameeyo calaa kulli xaal dawladdii wax badan ma geysan inaan ka mid ahaa ciidamadii SNM oo markaa u socday gurmad dhinaca galbeedka ayay madaxa qorigiisii ayay ku dishay maqaamka sheekh maxamed gadhigol oo gadhiga ku yaalna way duqeysay soo noqodkii haddaba ay soo noqonaysay ayaa ilaahay naga qabto dee qoladii SNM baa wax ku riday wixii bayna kusoo dhacay dawladdaas marka horta Axmed uu mahadsan yahay su-aal ma weydiinay laakiin xukuumaddeenna oo malaha uu hormuud yahay mujaahid maxamed tahay inoo fadhiyo waxaan leeyahay Axmed waynu aragnaayo wax fiican buu sameeyey laakiin wixii fiicnaayo uu sameeyey ilaa hadda waxba nagama hayo Soomaaliya 30 sano jirta gidaar kumayna fursan mujaahid wayna kuweena kala boo sameeyay Axmed oo mujaahidiintaasune maxayna ku xuseynaa taalada halkee looga taalada xagayna uga dhisaynaa waa inuu taalo qurux badan haddaynaanu wixii dadkii abaalka aynaan muujin kolley kuweynaba wayna ka qabiilka u muujinee waa inaynu Axmed muujinaa meel fiican wax loogu xusaayo loo sameeyaa taalo fiican bilaawayaaye magacaygu waa Idil Cali Khaliif waxaana nahay suxufiyad ka howlgasho telefishinka Horyaal adeer Cabdi Dheere su-aasha aan weydiinayaa waxay tahay waxaad tiri waxaad dagaalamaysa waxay ahayd dowlad baana amar ku siisay adiga deeto markaa caqabadihii aad kala kulantay maadaama aad amarkoodii aad jebisay oo aad adigu aad Jabuuti tagtay bal caqabadihii aad kala kulantay baan doonaya inaad nooga waranto waad mahadsan tahay bismillaah magacaygu waa Hibaaq Maxamed Nuur waxaan ku weydiinayaa su-aal markii aad Jabuuti adiga iyo diyaaradu aad tagteen dowladda Soomaaliya ma dalbatay in dib lagugu soo celiyo Soomaaliya nidaamka waqtigaa jiray caqabado fara badan oo aad u badanaa lagala kulmayay anigu ciidanka waxaanba doonayaba markii laga joojiyey oo 87 ilaa 86 aniga waxaan meel iska xaadirinayso wax kasta laakiin hawl iyo madiray markaa laftigeeda waxaan doonayay inaan ruqsaysto meesha iskaga tago xataa ruqsada lama ogoleyn marka caqabado fara badanay lahayd laakiin bixitaanka aan tegaaye oo halka aan ka tegaaye wax caqabada lama kulmin maxaa yeelay go-aankao dhan iyo waxa dhan waxay igu xirnaayeen aniga waxay igu xirnaayeen marka waxaba yaraatee markaas aan ma jirin maaragta oo iga hor istaagi kara marka hawsha iyo qaabka dowladdii Soomaaliya ma weydiisatay Jabuuti inkastoo arrinka aynu taabanay dowladdii Soomaaliya ma weydiisatay Jabuuti inay ku soo celiso ise waqti looma helinba waqtigaad kaga baxaysay
waa waxaan su-aashayda waxaan maqlay in taliyaha ciidanka cirka iyo saraakiil la socota inay tageen intii aan sugayey oo aan joogay magaalada tajuura guriga barasaabka oo martida halkaasaan ku sugayay muddo 6 maalmooda inta lagaga helayo waddan markaasi qaabila marka halkaasaan ku maqlay in taliyaha ciidanka cirka oo halkaa yimid iyo saraakiil la socota markaana kolleyba waa weydiisanayeen laakiin horey waxaa igu sii sheegay wasiirka arrimaha gudaha maalintii hore uu tagayey oo yidhi ninka haddayna kaa weydiiyaan waxaan leenahay ma hayno ninkaas ma hayno diyaaraddiina waa taa bastoolada wata markaana ayadana waa u dhiibo ayadana waa siinaynaa waa taa marka ninkii ma haynaa leena marka horeba igu sheegay laakiin inay tageenaan maqlay taliyaha ciidanka cirka iyo saraakiil la socota waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa aanan jecelahay inaa idinkuna iila mahad celisaan waktigaan wada qaadanay culayska uu leeyahay waa idin qiyaasi karaysaan in xusuusta dib loo celiyo wakti intaa leeg somaliland wax fara badan oo qurux badan baa ka qabsoomay sanadkii 30 sano u dambeeyey maalintii 88kii magaalada hargeysa la duminayay la baabiinayay iyo maanta farqiga u dhexeeya wuu yahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin baynu taaganahay wax aada u qiimo badan baa qabsoomo ummaddani ay qabsatay waxaynu u baahannahay in taariikhdan dib loogu noqdo si wixii dhacay ee foosha xuma aanay halkanna uga dhicin meel kalena aanay ka dhicin waana sababtaynu uga hortegayno taariikhdana waxaa loo sheegaa in laga barto inteeda wanaagsan iyo inteeda xun labadaba si ta xunna loo ilaaliyo inaanay mar labaad u dhicin oo cid kale aanay ku dhicin ta wanaagsanna loogu qabto oo loogu celceliyo meelaha aanay gaadhin marka somaliland iyo xilligaa wixii ka dhacayay magaaladan hargeysa iyo magaalooyinka kale waaweyn ee dalka wixii ka dhacayay xumahanahaana waynu baranaynaa iskuulladeennaynu ku baranaynaa bugaagta la qori doonay iyo kuwa imika la qoray iyo bugaagta nool sida axmed dheere oo kale baynu haddii ay bidin leeyahay ka baran doonaa si aanay meel kale uga dhicin halkanna uga dhicin meel kalena dulmigaasi ka dhicin dulmiga maaha inaynu u baranno inaynu iska ilaalino inuu innaga inagu dhaco waa inaynu u baranno inaynu iska ilaalino inaynu inaguna samayno oo dulmigu meel ka dhaco taasaa ina dul saaran oo waa taas sababta loo baranaya taariikhda inteeda wanaagsan oo ah wax inoo qabsoomay ee wanaagga ah aynu leenahayna waa inaynu barannaa ku celcelinaa isugu dhaarannaa in wax wanaagsan uu dalkan ka dhacay uu qabsoomay oo ay tahay inaynu haysanno ilaashanno xoojinno kabno meelaha aanu ka jirin aynu gaadhsiino marka labada sababeedoo taariikhda wanaaggeeda iyo xumaanteeda laysu barbar wadaya waa sababta waxaan laakiin rabaa mahadcelintu ka socotaa dib u qaadista xusuusta iyo xanuunka ay leedahay iyo ku noolaanshaha iyo aragtida qofkaasi wadnihiisu damqayay waxa maalintaa dhacayay ama ha noqdo inankaa yar isagoo curyaanka ah oo aan hooyadii la carari karin dhabar ku sido oo ay la kufaakacayso diyaaraddu dusha ay ka garaacaysay xanuunka maalintaa waa laga yaabaa isagu weliba inuu aada u da-yaraa xanuunka ay hooyadii maalintaa dareemaysay inaynu dib isu xasuusinaa dib ugu noqonnaa dawo fara badan baa ku jirta oo ay tahay inaynu ogaano inaynu ka dagaalanno inaynu ka hortagno inaynu u soo jeedno inaynu wuxu baranno inaynu yaqiinteenna ummadnimo iyo diin iyo iimaan aynu leenahay aynu xoojinno si aanay taasoo kale u dhicin dhinaca kalena quruxda iyo wanaagga aynu halkan ku wada fadhinaa maalintaa 88kiina muu jirin maalintii 82kii ama 80kii aan da-diinoo kale anigu ahaa maalintaana muu jirin oo maan samayn karaynin marka xumaantaa horey jirtay waxay macaankeeda tusaysaa inaan soo hor fadhiyo oo sida inanteera xaggaa dambe fadhida ay ka dhawaajisay innagoo qurux badan oo nabad ah oo qurux badan tihiin oo wanaag ku wada joognaan inaynu isor fadhino marka waxaynu ilaahay ugu mahadnaqno waa waxaynu qabsannay oy tahay inaynu xoojinno xasuusnaano isuguna celcelinno si aynu waxyaabaha inaga qaldanna aynuu saxno waayo dhadhankaa markaynu dareenno waxaynu dareemaynaa arkaynaa inta inaga qalloocda waxaan ku faraxsanahay oynu nasiib u leenahay in wasiirkii arrimaha guduhu wuu inala fadhiyaa sidaa uu isagu inoola fadhiyo inta kale inala fadhida ama ina maqlaysa in aynu u sheegan karno oo u sheegi karno
oo ku sanduleyn kara waxaynu dareensanahay caawa dhallinyarada somaliland halkan fadhida intii afkooda ku hadashay way hadashay way sheegtay waxay ka dareensatay taariikhdan way tustay axmed aniga iyo facaygiiyo intayga weyna wayna tustay oo warkoodu waa cadyahay dhegihii maqli lahaana way nala joogaan dhegihii ku dhaqmi lahaa ee dhaqaajin lahaana way nala joogaan marka waa wax ilaahay loogu mahadnaqo kun jeer baan kuu mahad celinayaa axmedow waxaan doonayaa inaan u yeedho wasiirka arrimaha gudaha بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka ugu horeysa ilaahay baa mahad leh waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa duuliye axmed maxamed xasan axmed dheere socdaalka uu inoogu yimi iyo kulanku halkan inoogu yimi baan aad iyo aad u soo dhaweynayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa professor jaamac muuse iyo mas-uuliyiinta dhallinyarada la shaqeysa ee xarunta dhaqanka kulankan taariikhiga ah ayay noo sameeyeen ee caawa halkan axmedna ay ku soo marti qaadeen dhalinyaro aada iyo aada u fara badan ay fadhiyaan kolley arrintan dee waayeelaan badnaynba halkan fadhiya dhalinyaro xilligaa haddii ay markaa jirteena yaryarayd haddii kalena intii dabadeed dhalatay ayaa fadhida kolley waxa ay macno u sameyneysaa xilliga axmed uu go-aankaa qaatay raggii markaa s n m-ta ka tirsanaa ee dagaalka joogay ee siday wax u dhacayaan garanayay ayay aada iyo aada macno badan u sameyneysaa waxaan jecelahay halkan inaan ka sheego dayaaraduhu dee hargeysay ka kacayeenoo hargeysay haddana duqeynayeen iyo nawaaxigeeda laakiin burcana way duqeynayeen waana taariikhda markii ugu horreysay adduunyada dagaalada ka dhacay ilaa qarniyadii dee waxaa adduunyada dagaaladii dhacay dagaalkii labaadii adduunka 50 milyan baa ku dhintay dagaalkii maxaan leeyahay labaadii adduunka dagaalkii koobaadii adduunka dagaaladii yurub ka dhacay kuwii carabta ka dhacay intii ay soo baxday tiknolojiyada lagu dagaalamo ee madaafiicda dayaaradaha sawaariikhda waxyaalaha noocaasi intay soo baxday waa taariikhdii ugu horreysay ee dayaarad airportkeedii magaaladu ku yaalay ka kacday ee magaalada ka kacday haddana dukhaysa waa taariikhdii ugu horreysay way dhacdaa dowladaha markay dagaalamayaan maxaan ku idhaahdayey sidii ninkaba ayna soo martay taliskii kalidi taliskaha iyo jabhadii ku kacay dagaalamayaan in magaalo la isugu soo galo oo ciidamadii dowladda iyo ciidamadii la dagaalamayay ay ku dagaalamaan oo taangigeedu magaalada burburiyo oo madfaceedu la rido oo waxaasi way dhacdaa taariikhda adduunka ee dagaalada way ku jiraan laakiin sidii axmed u sheegay waxa taariikhda dagaalada adduunyada ka baqan dayaarad intay kacday magaalada ay ka kacday duqeynaya midda labaad waxaa daystilayay ciidankii dowladdii kaledi taliska ahayd ee dalka haysatay iyo ciidankii s n m t soo galay ayaa de dagaalamayay de ciidankii dowladda soomaaliya raggii maamulayay xukumayay saraakiisha aanu saraakiisha ka wada tirsanayn bay wada ahaayeen may garan waayin aqoontoodii iyo waayo aragnimadoodii ciidankii la dagaalamayay s n m tu meeshu ku jira may garan waayin si aanaan anaku u garan waayin ciidamadii qeybtan hargeysa joogay iyo qeybaha kala joogay meelihii ay joogeen unbuu ciidankii s n m tu weerartay maanaan garan kari waayin ayana may garan kari waayen rag aqoon leh tababar leh aanu wada shaqayn jirna bay ahaayeen taasaa waxa ay ka dhigaysaa inaan ciidan lala dagaalameynina shacab la xasuuqayin
marka taasaa keenaysay inay meelaha qaarkood ay dadkii shicabka ahaa ee qaxaya ay ka daba tagaan 2 qof 4 qof 10 qof dad badan oo dhaawacmay dad badan oo dhintay dad badan oo mid lugi go-an tahay mid gacani go-an tahay ayaan arkaynay de moogtay magaalooyinka markii de madaafiicdii ay ku dhacayeen oo kasoo baxayeen laakiin dhacdooyinkan weli xasuustee maskaxdeeda ka bixin waxaa ka mid ah meel halkanabaa nafta noo keentay oo dabadeed waxaanu ku nidhi meesha aan sahankeeda iska sugno saraakiisha iyadii baaba tagtay markaanu ka nimi ayaa waxaanu wada soconnay cabdiraxmaan xunshi cabdiraxmaan axmed xise ayaanu labadeedu gaadhaanu la wada soconnay musabiixi dayib guray waanu badnayn aydaroosh baanu ku soo soconnaa odhexana haddaanu dhexda marayno ayaa waxaanu la kulannay 3 dumara 2 dumaroo daa waaweyn oo 2 islaamooda iyo gabadh caruur la kollay laakiin aan daa weyneyn waanu soo qaadnay 2 islaamood mid waan gartayoo in adeerkay hooyadii bay noqotay islaantii kale waanu soo qaadnay gabadhii ilmo yar bay sidata xalay umushay xalaytadan ayay umushay naabalwaran sidaa tahay waaruxii ma jiraan bay tiri cusbitalkii payment hospitalkii ha lay geeyey iyo cusub ha laygu soo umuliyey iyo xalaa 2 islaamood bay iska soo umulisay ilmahaygana waan soo jaqsadeen waa xambaarsanay waanu soconaynaayoo baddaa ma hayno yacniga moralkeedii baan aniga ilaa iyo imika xasuustaa inaanay dee dhibaatadii ku dhacday waynu garanaynaa qof dumarahoo umusha dhibta ay tahay horta wixii dhacay sidaasay ahayd axmed sida xaqiiqada ah aad iyo aad bay u fiicantahay caawa dhallinyaradiinan inuu sidaa uga sheekeeyo sideedaba waktiyada maxaanku idhi anigu axmed runtii iskumaynaan aqoonin ciidanka badiyaaba baydhabiye buu joogay maxaanku dhahday ballidoogle anigu qeybtan hargeysiye baan joogi jiray maxaanku dhahdaye qoladan ciidanka dhulka iyo qolada ciidanka cirka iyo intay isku eeriyada yihiin mooyaane inta badan aada suma yaqaanaan waan aqeynay halkan saldhig baanu dukaana ka xukunay saldhigan ciidanka cirka ee qeybta 26aad dee raggii magaalada duminayey madaafiicdii halkan hargeysa lagu garaacayey madaafiicdii 88kii markii lasoo galay burco soo dhaafi kari weyday qeybta qeybaha ciidankii soomaaliyeed ugu ballan bay ahayd qeybtan 26aad waxaa yiilay madaafiic aada iyo aada u tiro badan baa tiilay alla waan qiyaasayaa inay 150 madfac inay ka badan karto marka laga yaabo laga reebo kuwa yaryar ee hoobiyaha yaryar iyo kaalibarka yar leh oo madaafiicda ugu rangeka dheer leh ee la isticmaalo ay ka mid yihiin ee bmku ka mid yahay ee hawsarku ka mid yahay ee 85ku ka mid yahay magaalada hargeysa iskamay dumin laakiin de waxaa dumiyey madaafiic baa dumisay burco ciidankii gurmadka ahaayee ilaa iyo baydhabo ka yimi waxaa lagu xanibay oo ciidankii burco joogay uu ku xanibay inaanay burco dhaafin sidaasaa keentay inay dayaaraduhu xamar ka soo qaadaanoo berbera dhigaan madaafiicdii xamar kaydka qaranka ee xamar iyo kuwii qeybta 6aad ee hareenta baydhaba ayana waxay isugu yimaadeen oo burca isugu yimaadeen oo burca lagu garaacay keliya burciyo hargeysa mid bay isku isdheer yihiinoo burca waa ciid hargeysina waa buur markaa madfaca imika halkan ku dhaca laamigan dabadiisa ee buurtaa ku dhaca waxaa laga yaabaa 2 sekadood inay dhulka galaan laakiin waxaa laga yaabaa burco madfaca ku dhaca hadduu guriga dhinaca ku dhaco inuu dhinacaasu dumiyo de ciiddaa galo marka horta dee masiibo noocaasaa dalka ka dhacday axmed sidaas uu sheegayoo lahaa waa xasuuq axmed waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa oo u hambalyeynayaa xilliga nin go-aan adag leh oo caqiidadiisa islaamkiihi ay hagayso oo go-aan qaadan karaya ayaa go-aankaa uu maalinta axmed qaatay qaadan karaya
ninku haddii uu talis ka baxsanayo oo uu sarkaal yahay waxaa laga yaabaa awoodo fara badan buu leeyahay oo gaadhuu helayaa ciidan buu kaxaysan karayaa gaadhigaasuu ku baxsan karayaa laakiin way adag tahay nin duuliye ah oo dayaarad dagaal saaran oo aan haysanin meelo kale oo caawin kara iyo garoomo kale oo dayaaradeed oo uu ku dego waxaa laga yaabaa marka uu degayo inuu ku soconayo maxaanku dhahdaa 300 kilomitr pilot anigu miihi laakiin waxaa laga yaabaa markuu degayo ee speedka dayaaradoo dhan dhimo saacadda uu airportka cagaha ku dhufanayo airportka inay ku degayso 300 kilomitr 300 kilomitr waa hargeysa berbera burco moogta waad qiyaasi karaysaa markaa speedka uu tegayo waad qiyaasi karaysaa maxaanku dhahdaye markaa duuliyuhu dayaaradda cilo timaada dayaarad kalaa ridi karta pilotku wuxuu qaadan karaa go-aan baarashuudkiisu ku duuli karaa deegaanka uu ku duulayana aanu garanaynin deegaanka uu saacaddaa ku tegayana aanu garanaynin waana uu qaadanayo meel yaroo xeeb ahoo waxaa kasoo bixi karaya oo aanu weligii ku duulin inuu dayaaraddaa dagaalka intaa ku soconaysa uu ku fuulo khatarta intaa leg ninka u bereeri karaa go-aankaa u bereeri karaa waa nin geesiya waa nin leh maxaanku dhahdaye go-aan uu qaadan karo way dhici karaysay markaa maalinta hadduu bambooyinka rido qoladiina imika halkan fadhiday aynamee daayartaan bambadaa in hooyooyinkiin iyo aabihiin ku dhiman kari lahaayeen soo maaha marka horta idinku waa inay imika aada iyo aada u xasuusataan inuu axmed wax weyn qabtay inuu axmed dadaal weyn sameeyey inuu arrimaha bulsho bini-aadminimada ah uu aada u qadariyey inuu wax fara badan uu ku talagalay inuu sacrifice qaatay oo uu naftiisa wixii kastaaba ay ku iman karayeen waa laga shakiyi karayey waa kii imika day nooga warramaye yidhi mar baa layla soo hadlay markii dambena waan damiyey waa la keri karayay raadaaradii inay sheegaanoo dabadeedna isaga laftiisa dad dayaarada lagu kiciyo marka waxaan leenahay wuxuu hadda inoo xisaabiyey dayaaraddu marka hargeysa ka kacdo ee ay duusho ee taargetkeeda magaalada hargeysa ama hareeraheeda ay soo marto waxay wakti ku qaadanaysay inay kusoo rido 15 daqiiqo oo garoonkeediina haddana ay kusoo noqoto oo haddana 15 daqiiqo kale lagu diyaariyo markaad ka soo qaado subaxdii xilli 9 ilaa 10 diyaaradda la diyaariyo galabtii 4 waxaa ka dambeeya inaan diyaaradda mission la siinin waayo de iyagu waa diyaarado oo xilliyo gaara unbay de waxa duqeyn karayaan 6 saacadood oo wakti ah ayay diyaaraddaasi duulimaad samayn karta 3 saacadood markaad u jarto in diyaaradda laga shaqeeyo oo techniciansku markay soo duusho oo hubka lagu xidho oo dabadeedna ay sidaa ku duusho diyaarad waliba 3 saacadood bay wax garaacaysa waad garan karaysaa markaa inta ay waktigaasi inta uu leegyahay waad garanaysaa markaa diyaaradda markaa uu waday maxaanku dhahdaye 500 iyo 500 kunka kiilo qaadaysa markay 3 saacadood wax garaacayso mid waliba ay 30 daqiiqo noqonayso maxaanku dhahdaye waa 6 jeer ama waa 9 jeer inta ay kacaysa intaa waxay qaadanaysaa min kun kiilo waa 1 tan ayay markaa maalintiiba ay ridaysaa marka waxaan leenahay axmed hawl badan buu qabtay haddaynu reer somaliland nahay xasuus buu inagu leeyahay qadarinna wuu inagu leeyahay inaynu xasuusanana waynagu leeyahay dhallinyaradiinu inaad taariikhdaa barataanna way u baahan tahayoo dabadeedna imika caawa halkan u ayaantan idiin joogaayo
waa inaad sawir iskala wada qaataanoo halkana waxaanaan la garanaynin ay idinkaga sawiran yihiin in aad qaadataan aad sawirada de garamada axmedde aydunta qaadataan ila taariikhda taasaa lagu fidiyaaya su-aalaadkii la soo jeediyey inta xukuumadda na khusaysa kaasaa nin baa wuxuu yidhi waxaan islaamay marka qolada kulmiye meesha qabsato axmed taaladiisa waa la dhisaya waxaynu dhisaynaa hadda halkii khayriyada la odhan jiray waa idinku artay fooq baa laga taagay halkaa waxaynu ka dhisaynaa muuseyga qaranka muuseyga qaranka ayaynu halkaa ka dhigaynaa axmed wuxuu ka mid noqonayaa dadka lagu xusayo ee taariikhdiisu ay muuseyga qaranka oolayso wixii kale aynu ku taraynana waynu ku taraynaa laakiin waxaad ogaataan bini aadmigu noolaha ilaahay abuure baynu bini aadmiga ka mid nahay markaa marba inaka iyo xayawaanka laysku keentiraayo waxaba laatiinka idhaahdaa animal laakiin waxaynu ku kala duwannahay waxaynu ku kala duwannahay waa garaadka iyo garashada bisadu suuqay ugaadhsi tagtaa laakiin guriga lagu rabeeyo way kusoo noqotaa eygu waa la mid neefka xoolihii xeradiisa wuu yimaadaa waxaynu dhaanaa garashada maskaxdeenna ina iskaga mid baynu nahay ina waynu dhaanaa dadka bini aadmiga waxa ugu badan khasnada ugu adag ee wilaashadaa waa taariikhda maanta wax kale male waxaad arkaysaa imika marka 50 guura buuxsanto 60 guura buuxsanto 70 guura buuxsanto taariikhaha noocaasihi marka ay buuxsamaan waxaa loo dabaaldegaa dagaalkii koobaad ee adduunka waxaa loo dabaaldegaa dagaalkii labaad ee adduunka waxaa loo dabaaldegaa yoom alqubuur waxay u dabaaldegaa maxaanku dhahdaa siinay bay masaaridu u dabaaldegtaa soomad garanay dal waliba waxba u dabaaldegayo uu leeyahay maalintaa loo dabaaldegayo dagaalka labaad ee adduunka madaxweynayaashu halkan unbay sida shicibka fadhiisanayaanoo ragga meesha ka madaxweynayaashii ahee la xusayaa waa hadhaagii ka soo hadhay dagaalkii labaad ee adduunka taariikhdu markaa ummad waliba waxa qura ee ay higsataa waa taariikhda dowladaha imika horuu maray markaynu aragno xataa sistamkeeda dowladood waxay ku kala duwan yihiin habdhaqankooda iyo taariikhdooda ayay ku kala duwan yihiin anuu dhallinyarada markaa waxaan leenahay dhallinyaradu waa inay barataa taariikhda hadda imika dhallinyarada halkaa fadhi hadii la yidhaahdo caawa ee waxa maxaanku dhahdaye aasaaskii xorriyaddii ingiriiska ee somaliland waxaa ugu horreeyey xisbigii SNL waxaa ku xigay NUF waxaa ku xigay USP xorriyaddii ingiriiska aynu ka qaadanay xisbiyadii u dagaalamayay ka hadlayay kuwaasay ahaayeen haddii caawa la yidhaahdo waa wada reer Hargeysa waxaa laga yaabaa in yar baan reer Hargeysa ahayn xaaji cumar askar kumuu ahaa xabadi ka garan mayso laakiin haddii la yidhaahdo maxaan ku dhahdaye Messi waa kuma iyo Ronaldo waa kuma sida faatixaday dusha ka akhriyaya haddii la yidhaahdo Michael waa kuma garanba maaya haddii la yidhaahdo USB yaa president yaa madaxweyne ka ahaa la garan maayo xaaji cumar askar waa ninkii xisbigii SNH ee halkan joogay madaxweynaha ka ahaa xaaji cumar askar dhakhtarkan gruupka joogana waa ninkii dhalay marka maxaa la rabaa waxa ay yidhaahdaan xilliga maxaanku idhaahdaye la diyaarinayo jaamacadaha iyo military academiska marka la diyaarinayo dadkan loo carbinayo leadershipka waxaa la geeyaa xabaalihii dadkii hore ee dagaaladu dalka soo galay ay maxaanku dhahda ku dhintay ee taariikhda lahaa Eisenhower waa ninkii jarmalka dagaalkiisii jabiyey ee madaxweynaha noqday waa Winston Churchill waa hebel dabadeedna in waliba wuxuu isiraahdaa saasuu halkaa isu qabtaayo wuxuu isiraahdaa Churchill oo kala noqo Eisenhower oo kala noqo dee waxaa ku dayataan facebookyada iyo kuwa iska aragtaane taariikh halgamayaashii ku dayna lixlo oo kala noqotaan
inaad aadan shiino oo kala noqotaan iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo koosaar iyo raggii de faraha badnaa ee dee halgankaa aadan salaamaan iyo axmed raggii de halgankaa mahdi cali faarax iyo ibraahim riya waanan wada xaadirin karaynina de raggaa ina halgankana waxaad u baahantihiin inaydu maxaanku dhahdaa ay qaataan axmedna waxaa u baahantihiin inta uu inoola joogo inaad la sheekaysataan arrinkii inankii xidhnaa arrintiisii jaamacya baan ka wada xidhiidhaynaa taladana waan qaadanaynaa tallaabana waan ka qaadaynaa axmed oo aad iyo aad baanu kugu mahadnaqaynaa qarankan iyo ummaddan xasuus badan yeelanaysaa waanaad ku leedahay waxay kaaga xasuus badan yihiin qaar badan oo ka dhashay oo maalintaad go-aan kaa qaadanaysay aan go-aan kaa qaadan karaynin aad iyo aad baanu kuu salaamayna haddaan ubadka uga hesho haddaan runtiya tacluusta haddaan ka badbaadsho hooyo haddaan dunida horaysa lahabto